maqaaxi laga cabo qaxwo iyo shaah isla markaasna laga cuno sambuuska bajiyaha iyo mashmashka ayaa laga furay magaalada Göteborg ee dalkan Sweden. maqaaxidan la magac baday Som Cafe oo ah midii abid ugu horeysay ee Soomaaliyeed ah ee laga furay magaalada Göteborg ayaa laga furay xaafadda Angered ee Soomaalidu ku badan tahay. haddaba warbixin amirtaas ku saabsan waxaanu ka wareysanay mulkiilaha maqaaxidaas mudane Axmed Deere. horta Ibrahim marka hore waa maasan tahay adiga TV-gaaga iyo teamkaaga horta runtii baahidan way jirtay oo maaragtay saad ogtahay qaybtan state-kan magaaladan Angered Soomaali badan baa degan ajaanibto dhan badi haddaan fiiriyo way ku leeyihiin meel maaragtay ganacsi ah حتى Soomaalidu way ku leedahay laakiin fikirkan cafeteria mar hore ay maaragtay maskaxdeeda ku jiray wuxuu ilaahay maaragtay ka dhigay inay hirgasho maanta oo ah maalintii furitaanka oo runtii hadda walaalo badan meesha ay soo galeen iyo ajaanibba marka taasna kulay waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay iyo walaalaha Soomaalida oo runtii u baahnaa fikirkan aadna ugu dhiirigeliyay meeshan waxaan ka codsi karaa kulay wax walba oo maaragtay ku saabsan wixii aan ku cuni jirnay wadankii Soomaaliya saad ogtahay Carabtii iyo Iiraantii kullu way barayaan wixii maaragtay tradition-kooda waxa marka hadda kulay anagana Soomaali ahaan anagoo ka duulayna waliba magaca Afrikaan noogu qoraya meesha waxaan keenay sambuuskii bajiyihii mashmashkii burkii wax walba maaragtay runtii waan u qaybinay inta dariskeena ah aad bay runtii u soo dhaweeyeen anagoo maaragtay bilowgii aan ugu talagalay inaan soo dhaweeyno aan tusno marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay aad ugu farxi doonaan dadka ku nool guud ahaan eriyadan waxaan kulay halkan laftirkooda waxaan ku leeyahay dad daris ah runtii arintaas way ka dhawaajiyeen waxaan fiicanayn meesha dad fureysaan in xogaa yar si tartiib loo hadlo aan la isku buuqin si wanaagsan maaragtay lagu wada sheekaysto sida kaftiirada caalamka oo kale saad agtahay anaga local ma ah meeshan waa meel ganacsi ah marka waxaan jecelnahay ayagoo meesha waa meeshooda runtii in la ilaaliyo nidaamka guud insha Allah marka wayna ku sheekaysan karaan xitaa gabdhahan ugu talagalnay ma sha Allah marka waxaan rajaynaynaa meel insha Allah ay Soomaalida aad ugu hesho inay noqon doonto insha Allah waxa jirta iyadana in hawlo ka baxsan sida hadii la soo dalbado kala aroosiyada ama xafladaha ama fooreenada oo kale wax service ama sameyn kartaa kulli anaga hadda meeshan waa saldhigeeni laakiin waxaan ugu talagalnay inaan aroosyada aan dalabka aan maaragtay aan u sameeyno inaan maaragtay xafladaha runtii wax walba maaragtay ha noqoto macmacaan ha noqoto raashin kariska bariiska sida wax walba kulli waan u diyaar garownay insha Allah waxaan jeclahay inay Soomaalida inay ka faa'iido doonaan maadaama ay noqotay concurrence lagu dagaalamo suuq lagu dagaalamo Soomaalida in anaga maaragtay dadkeena wax service fiican u sameeyno xitaa kulli Ibrahim oo saad ogtahay waxay u baahan yihiin lokaal waaweyn xaflada ku dhigtaan Soomaalida ay maaragtay aroosyada ama markuu yimaado nabadoon ama nin siyaasi ama ay ku kulmaan reer ahaan taas laftirkeeda fikir ahaan iyo restaurant weyn oo ku tala jirnaa insha Allah marka wax walba waa la gaarayaa step step insha Allah gabadhii bulshada Soomaaliyeed ku nool Göteborg kulli waxaan ugu bishaareynaa 2015 February waxa idin furmay Som local magaca wuxuu wataa Soomaaliya Som Cafe ومعناها سوري Som Cafe magaca Soomaaliya oo soo la soo gaabiyay marka insha Allah ayagoo magaca ilaalinaya meesh in si nidaam ah ugu imaadaan ay ka ganacsadaan ay maaragtay dadka kale xataa ajaanibta ku soo dhaweeyaan si maaragtay u noqoto meel maaragtay ajaanibta iyo wadankan dadka wadanka leh inay maaragtay ka faa'iidaan anoo qadijo eelaa maanta waxa la kulmay meesha cusub nasiib badan yaa kafeegaasna waa helay sambuus macaan awligay arkin ما شاء الله تبارك الله أدي هذا أقول فرحي إلهني بركة